si uu u dhibaateeyo macalimada cusub. Wiilka ardayda xooga u sheegta ayaa caano korka kaga shubay. Macalimadu way naxday balse waxba kama ay qaban karin sababta oo ah way ka baqaysay. Maalintii xigtay isagoon xishooneen ayuu si lama filaan ah kor ugu qaaday. Ardaydii kalena sacab iyo mashxarad ayay ula kaceen halka macalimadii ay iska aamustay. Ugu dambayntii shaqadii ayay iskaga tagtay maadaama ay ka baqday awoodda qoyska wiilka, balse wiilku ma oga in isla weynidiisa ay dhowaan cashar u dhigi doonto. Subaxdii xigtay macalin cusub oo aad u qurux badan ayaa dugsigii soo galay, laakiin markuu fasalkii gaadhay wuxuu la kulmay macalin kale oo u diyaarsan sida ciidanka rabshadaha ka hortaga. Isaga oo yaaban ayaa macalin kale oo oynaya soo agmaray, waxaana loo sheegay in fasalkani yahay kan ugu dhibka badan dugsiga, iyagoo horay u eriyey 9 macalin. Markuu gudaha galay wuxuu arkay foodo. Qaar ayaa cunto karinayay, qaarna taynis ayay ciyarayeen. Halkii uu ka xanaaqi lahaa wuu u tegay oo tusay sida saxda ah ee loo ciyaaro. Kadib wuxuu dhex galay muuqaal toos ah oo live oo ay gabadh duubaysay, taas oo keentay inay xanaaqdo oo isla goobtii ku caydo. Wiilkii fasalka haystay ayaa isku dayay inuu walax ku soo tuuro, laakiin macalinka oo xirfad leh ayaa si degdeg ah iskaga difaacay oo ardaydii ka yaabisay. Xaqiiqdu waxay tahay macalinkani waa dhaxal sugaha qoyska qaniga ah ee Jin. Wuxuu ganacsigii uga soo tegay shaqaalihiisa si uu u fuliyo dardaarankii hooyadii oo ahaa inuu macalin noqdo. Maalintiisii ugu horeysay cidna ma dhegaysan, qof walbana hawshiisa ayuu watay. Markaas ayuu go'aansaday inuu qaab kale ula dhaqmo carruurtan. Madaxa adag hogaamiyihii fasalka ayaa soo istaagay isagoo leh, waxbarashadu waa wakhti lumis. Waxaan rabaa inaan noqdo taajir sida mudane Jin, balse ma oga ninka hortagan yahay isla mudane Jin. Macalinka ayaa sharad la galay, haddii 7 maalmood gudaheeda aad igu qasabtaan inaan baxo waan tegayaa, haddii kale waa inaad amarkayga qaadataan. Ardaydii waa ay aqbaleen. Isla subaxdii xigtay baa baaldiyo bur ah ayay albaabka saareen si ay ugu shubaan, laakiin macalinku dalad ayuu furtay. Burkiina wuxuu ku daatay ardaydii safka hore fadhiyey. Markuu miiskiisa fadhistay wax walba ayay ku soo tuureen, balse si la yaab leh ayuu mid walba iskaga leexiyey isagoon booskiisa ka kicin. Ugu dambayntii kursigiisa ayay xabagta ugu badan mariyeen. Wiilkii wuxuu sugayey inuu ku dhago, balse macalinku kuma fadhisan. Markii uu wiilkii isku dayey inuu kursiga tijaabiyo, isagii ayaa ku dhagay. daawada su'aal aan ku weydiiyo waa kee dhakhtarka bukaankiisa una? Haddii aad taqaano jawaabta nagu soo qor dhanka kommentiga. waa noo muhiim fikirkaaga. haddii aad halkan nala soo gaartay waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo dhegaysigaaga. fadlan walaysa amran sabskrayb iyo like nagu caawi. mahadsanid.